سيداتا الله يركن ناشد سيداتا سامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دحو مقنا إن بدن بان waxaa jirtay aanu kay u dabaaldagaynay dimuqraadiyad la'aan maalmo badan cabsidii ummadda haysatay siday maanta tahay Itoobiya warto dhibaatooyinkii la gaaray inaan maanta nasanno inaan carruurteena tooyno dimuqraadiyadda Dr. Xaaji Abi iyo Dr. Mustafa waxaan leenahay waan ka gardaranahay shirar badan baa qabsanay kolkan shirar badan iyo meelo badan qabsanay waxaanu qalinka ku duugnay inay laba muwaadin oo nu ka qaldanahay marka waxaanu isla qaranay oo nu isla meel dhignay haddana xisbiga hooyo turso
labada quraar ruug inaan nabad gelino sababtoo ah xisbiga hooyo turso waxa ka go'an inay dimuqraadiyaddu sii ballaarato inay sii nin kasta oo ku le waxba buuq baa jira oo waxba meel saa ku jirana waa nin dan lena annaga ma aha nin dan le innaga ma aha hooyo tirsana ma aha waxa weeye beelana waxbaa kacsan cid kacsan ma jirto nin walba inuu bannaanka ka tirsado uu bannaanka aroor baa ka qaatan buu rabaa adeerow annaga nagu dul tirsan maysid wax kacsan ma jiro ree hebel ma kacsano adoo kacsan andhaho andhabi xaaladda kale waxa weeye dadka dimuqraadiyadda xagga dambe ee dimuqraadiyaddu inay deegaanka ka hana qaado diidan waraawanu tirsanayno balna istanbul john marka waxaan leeyahay dadka noocaas sidanadoo kale hadhaan waanu tirsanay wandu waa inaga arwandu laydhkiyo ninka antenooyinka horumarka dowladda inaan ii tabanno nacabla noqonaa rabtaan wandu wuxuu laydhkiiga maxaa ahaa war laydhkii muuna gaadhsiin goljannan u baahan laydhkii laakiin ateenkii buu gaadhsiiyey goljan iyo meeshii kale iyo xoob ahaydba marka waxaan leenahay war horta dimuqraadiyaddu waa shayga keliya ahee uu dadku ka bogsaday dhinaca kale abti waan kaa qaaday dhinaca kale markaan eegno dimuqraadiyadda haddaan anu ku dhacon baan ku dhici karaa guriga sheekhu waa innaga marka waxaan leeyahay waxa weeye gruubkii aad garanaysaan oo qulfi jigirka ahaa ee xisbiga hooyo tirsa ka baxsaday eed garanaysaan waxa weeye qaybtan madaragtay xaggan labay u kala gomeen maanta horta waad ogtihiin xubnihii waaga dhaweed iga baxsaday laba waxay galeen nimankii lo odhan jiray xisbiga hooyo tirso iyo kolkii hore si guud u ahaayeen qayb al-shabaab baan idhi oo waa qaybta carartay ee dhisababi iyo bahashii gashay waa alsha oo waa qaybtii ay nimankii aad garanaysaan hormuudka ka qaybna qayb muwaadiniin ahay ahaayeen waa la xidhay waxaa loo diray xubno kabane ah ayaanu diray waxaa layga ogolaaday in lagu daro xisbiga bb in lagu daro layga ogolaaday waa kuwa xidhan waayo waa muwaadiniin mayna cararin kuwa waxay rabeen intay hooyooyinka iyo shacabka iyo waxa dhex boodaan oo dadka dhahaan meel baanu u soconnaa eegada meel baanu u soconnaa meel mayna u socon tuug weeye qaarna jabuuti buuba galay waxa weeye shacabow yaan laydi waalin inagu haddaan anaa shacab codkiina ku hadlaya waxa weeye 5 sano xaaji abi xalay waad maqlayseen baan malay warniyo update ba ma tidin alla talaa waraaha kolka aniga mustafa inaan isku dhacsan war wax isku dhacsan ma jirto xisbiga hooyo turso iyo xisbigan u qabta xisbiga ruuxi ka soo cararaan qabta ruuxi ka soo carara ay shaqo xumi ku soo riyaan anigu ana meel la fadhiya oo waaniya kolkan waaniyana asagoo tab uu gala shaqadiisi waxba ama Mareykan ku shir ama futabiciid ku shir away xisbiganu waritoobyo dhan ba ka yaaban santi beelafna anu waan la garab diray aniga dhowr xubnood ba deegaanka kala dirinay dhowrtaasna way qoran tahay xisbiga cidii lugaha qabatana xisbiga bb ayaday u daran tahay anu shaqada dawladeed baan systemka naga difaacanina gaashaan la dhaxay farxan al nuur baan waahay systemka naga difaacanina waxa weeye xukuumadda la shaqeeyo ogaadano hal baa ayadana aan ku soo qaadanaya ninki dadka nagi wada dilay ee qabala aroortii ku quracanay waraa dhuxun imisa ka dhimatay waraa hebel qulo waraa hebel dilow aroor walba oran jiray waan ka raysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta mustafa dib inaguma hayo farq kastuu meel gurdagan yahay 20 qof ba lagu diri jiray ama 100 qof ama annaga naloo adeegsado ama yaan loo adeegsanin dadka nagi way badbaadeen waxaan isku hayno maanta waa dhuunu mustafa iyo kaana la isma soo dhigi karo waxa weeye qaatil abdin kaleed iyo diin kale diin lagu cafi karo ma jirto haddii la iska cafiyo aad rabto wax lagu cafi karo ma jirto
ma annaga cafiska u hayna mana cafiyayno eegadana waxaan qoraya dadkan xagga maalinguurka u yaacay mercury baa ku jira saacadii uu cabdi saacadii maalinguurka dhidhaya markaasay weliba inaan annagoo dadkanagii ayna weli qasab ayna oohintiiba si xora oga imanin baad rabtaan inaan nuu oyno loo ooyi maayo waxa weeye cid kastoo jidkaa u marayna halkeedaan bay fadhiya qofku hadduu qof dilo qofku raxama tirsanine qofku hadduu qof dilo wargar allay taqaanaa qofku hadduu qof dilo ayada xildhibaankii yidhi berri aroortii sabtida ha laga saaro baarlamaanka xildhibaanka yidhi inta soo fadhiisa awgii in la cafiyaan rabnaa waxbana kaama dhimanin ogaadeen ninkii aqli lahaay oo dhan u ka dhinta kii kalena wuu cararay wakaa bislay daawanhaya hadduu waa beenaalahay dhaho wakaas qumaadaan ku qorshayna cabdioo jooga in uu dadku maskaxda kanu mahebel baabaan ka raysanay eeg mahebel baa kanu iyo ma maxayba wala ruux raysaqa الله مدحتويada sii galibaad siqinka ku dhufanka kale dimuqraadiyadda inaan iska duminin dimuqraadiyadda inaan isku duminin Mustafa warma ma yaray quraan ruuga Facebook ku fooraraad yaal macnaha ilmaha yaray quraan ruuga Facebook giisa iskaga foorara yaa waxid yeeli hanagu carinina dimuqraadiyadda halkeedii ha socoto waxa weeye hawlihii labadii nimankiina labay u kala jabeen waxba yaan la idwaalin nabadda hala daaqo intii information wax ku cunaysana information wuu dhamaaday haddaad tiraahdo suldaanku friendship kugu xamanayay waxba ku dhagaysan maayo cid walbana qalbigeeda halkaas kala waa markasoo waa nin wax bartay anda b coffee fay weeye ninkalo hawadu wax ka daalacanaya dadkoo dhan kii la dhoyto biyo ku xilan yahay waa libaax saa intii loo qabto yaa god lagu qaban alleen xaajigaa soo amray waraakaas ribood buu ii keenay حاجابي وهذا كان أنت مالك كرات قرنا إنسان حاجابي يولالكين دكتور مصطفى وعاوي هلا جرب استاجو يلا وريرين ضد قرآن روجها وريا نكيو قال كذا كذا يبى نكيو راد لي محمد مصطفى كويس ستان ما أنت تكتب وتكتان محكمة مريسان مريسان وقال نكي كذا كذا يبى واحترى عبد بدلي محمد مصطفى كويس ستان وريا رجي كلكو الله الرحمة شقتك يمرك مصطفى يبي يمرك كهلايان BBC ده وح ضد صوماليين ضد كنوع عاسى أغلق على كتير المجلس مركزو أفكي كاتش مركزو ربعين وبنان كتشوف أبان على ولقي من السودين ولقي عندي وعي من رجال وطن كيدلي لما السودين هيو نك واحد نقاي سنة ورلون تناقوا نقاي سنة وحدود لكم هاي سنة كر الله يتقانا قر الله يتقانا نكن وروح ناقي بيو وحسيه وحبورس بانكواي سنة مدل بانكواي سنة وريا قرآن روك على لا شقي ورهبين هرانا نكو كفاء وان حنون صلي والله وان حنون صلي إنه داعي واحد كوكرن أرتو واحد معناها دقل ورنيون تشكل الصعود والله بالله إنه أوليني كانوا ياهي ما قرنا يسان هذا أنا كوا باص إلى قيلاي صاير أصمر أنا ده كل كان مرقان عوانا مرقان سنين نط كان دي شيء ما نترسن والله وبالله وتالله وقالنا وحضرتان حمارين مساكود ما تلبيه توان يحب مساكود ما تشجيتن قلنا كذا مثال قلت له تتبعت ولا وين وحاسد ربطان ده أبو حتى قرآن يقلع دي بضربطان ورتد الديمقراطية ضد الشمتين ورتد وحاتين ورتد انت النور إن النولات وريان وقالين سوق نتا ولا دلدلة هي ما صدرارتو قبصة كوه حري وريا حاجة بينا لا شقي ما صدرارتو قبصة كوه اللي حري بيك اللي صدق الله وي تلك يا عقلي يا تلك ورهاي ترسلا إلهي وحقوق روادهلي هاي ترسلا واسكالنا هايسكبر عدن وحاوي وحيابها كله دلك وكتيرو دل أيضا ما أركي كرنو من كان وحجر هذا يكادوا أبين ضمبه مركب وحلا هاي أبتي أقول بنقول حاج قالوا تعلنا حاج مست حاج ويوم مست
ولا قرية سموجد قرار روق إن روح وحلا يلا داربون إنه صايد ورا السلطان كدور تبي المركز سودان كقدرت من روح أقل مترت متى كلا أنا وابه الشرف وريا صوصيد وأنا شرفي ونمونا يدي ولا شرف من كي ورا يهود كذا جوري سعر كتيرتن ورا بقول لكم الحمد لله ده الحمد لله رب العالمين إله نصيص سياد ديمقراطية هانا قاضي إنه هبين قلب مدحوينه نجيو مساجد كتير عنه كوحيننا هذا هو نكان صدا الله ومدحوينه الله ورا مدحوينه لا شقيست ولا odayaal in lagu dul koray una dhaar walba ku kicin aanay dhaarowt marka waxaan leenahay laba nin oo la iskarab dhigi karo ma laba nin oo la iskarab dhigi karo ma kaas xildhibaankayga abdi la soo daayana daaduna waxba ka dilina soo daadee anoo maxkamad baan daawanahay abdi mustafa na siidan karin abiyana siidan karin waxaanu daawanaa 106 qodob ee dastuurka gacan ku dhiigle dadkii oo dhan dhameeyay in maskaxda kaga xaaray weeye intii soo daysatay lacag moodaysa intuu dhiigoodii siiyay kaalay gurigana anaga deganayna asaga leh waan dhisay ma asaga laha war horta waxa leediin wixii kala wax garta hadda ninku mustafa guri siiyo ma asaga leh marka waxa leh bar waxa xaq u leeyihiin barta horta أنت شالقيو يان كوكستو جوجا شالقين أنا عبسيدو ما كشالقين لي مركا لكن نكاسو نكي أسقونا ورنا أنا قولوا والله ما هي وحلينا هاي ذاتك أنتو مدحوين مصطفى وحلينا هاي وأنتو كقرب تاجرنا أنتو نين ديجان كجوجا نكاو دودا يوم ما تبى بالنجات كيسي meel ba ma dhaqaaq karno eegalan baan ka xiraami laanahay ninka reer koodi waanu ka foofilaanahay waanu ka tirsan laanahay intay dadkii wada saayeen oo dadkiina cabsiyeen iyo inay kuleeyihiin aad moodaysaa joog adigaana dilahaynin oo kolka lagu yartay Facebook wax ku soo xariiqiye weligaaba joog hooyo tirsana kaama rabno دبكي يا غرفة فحلي يا شالقة محيعونا يا شالقة بريستات شالقة قرع فابي والله مرينا وحي يردن مقاعيدي ولا تشنكاها يا نكرر يصني مركا وحوية كوباي سوكرا مركا ولقا أوردن اسكتشو أنا قال كأنك يباتاي وانكو أقلهاي أنا وحنا ساوسي كلا جلين سانو كلا جلين ديغان كان على كو أقان نيكا كابدلنا وانيكا إد كالو دحدين نقلي حرام بكتاي أعد مركا وحن لنا هاي مدحوينها نجا شرفت له مدحمونا مصطفى يا دكتور أبيه شنطة سنة إنت كوكب سنة هيسا أيضا يطالع وإد معناها غلط أنا أقول بس $50 نصدرته $50 بس نصدرته مركا وحن لها هاي دمانتين أنه كرسيان صاحب لنا مصطفى وانغا وان انتو ديغان وري الله هذا نكفو فلان هاي او ميلها نو سيستاغ واغي عبد المقرن شن iyo 10 nin oo madaxweynayaal ah oo ogaadeen ba kooreysi hal nin oo dil ogolaaday ma jirto deegaankii oo dhan ninkii dilka baray maxkamadda ayaan ku kala baxayna maxkamadda aan ku kala bixi anagu Mustafa la shaqaysanina asaga mooyin haduu bari deegaan ka tagana waxaan leeyahay haddii aanu macnaha ninka waxaan ku kala bixi uun sharci dad buu dadkoodii iska laayay dad buu maskaxda ka laayay dad buu dadkoodii laayay
markaasay waxay leeyihin maan la soo daayo markaasay leeyihin maan la iska soo daayo war dadka naga dhiigooda yaana siiyey hal arooraha intii halkan shirka loo qabtay baa saraakiishoo dhan lagu yidhi maalin gur dhammeeye waryaa macaarsada maydaan ka maqal basadiir macaarsado orgi baa dhalay waree ma basadiir baad ka aqlin dartiin waanu aarsanaynaa dadkanagii dab inaan nahay hala qorto halkaas ma giir adaga ma maalin guur baabaa la gaadhay markaasaad jare warkiina yara la shaqaysan jira ayara kadinka ka soo daayo inuuna soo baxaynin baa wallaahi intaan anigu aqligaygu uu sii kordhaaye waraa ninku migaaba fiican yahay miigo hooyo fiican yahay awey ninkii cabdibakool awey ninkii ree cabdilamuun ahayn cabdibakool wuxuu yidhi wallaahi bilaahi tallaahi odaygaas madaxtooyadu igu warramay wuxuu yidhi intuu tigrayga gacantiisu iga daashay yuu asagio am labaa jiqilka ila dhacaya buu yidhi waraa muuna cabdibakool ma dameer baa dhalay muuna ree cabdilahayn waa la xisaabtamaynaa xildhibaankii habeen hore ka dhaxallayna xildhibaan nooma noqon hayo dee hadda hadduuna sharciga mustafa noo marinina dee asagaaba cabdi oo meesha fadhiya dad noocaasi inay noo sii dhex fadhiyaan xaaraan bay ka tahay ma aarsada dameer baa dhalay cabdi waa lala xisaabto ninkanu guri baan ku haysanaa waxaa noo joogo yuu dilay ninkanu 10 nin isku jil bay ogaadeen uu dilay bal horta ii sheega ama libi boolisa ورجال الله يتقنا إنك والله حسابته منا ورا سوق بسينا سرايا وحكمنا ضمير لا لا ترى أبى لك إذا سوق بسعد ساقو كلام بساق بسلبة إيراي دلبة إيراي قال يتقنا إنك نقلتي ستي إنك ورا نقلتي ستي ولا كولومبو أقالك يدور صوت كولومبو أدبان سلام يا قدومية حسبك هاي ترسسنا أدبان كذا قال وحاطي علىهم برشلة لبيري عبدي what's the differences لا عبدي عند مصطفى فرق أوضح فيسبوي كوسع لبيري ونكرفه horta adiga waxaan caawa ku qaba maadaama aad ka mid tahay gudoomiyaasha xisbiyada dawlad deegaanka ka jira inaan hal su'aal ku weydiiyo horta live ka dhanba intaas caawa ku soo qabsaday adiga oo ah gudoomiyaha xisbiga ma yahay weydii okay waxaan ku weydiinayaa adigoo ku hadlaya afka xisbiga hooyo tirso adigu ka xisbi ahaan yaad u aqoonsan tahay gudoomiyaha oo nalaf inuu yahay ma doctor maadey si cadaalad loo doortay baad u ixtiraafsan tahay mise garabka waxaad اعترافات كلا بي اعترافات سؤال سان كويديني قدومية حسبنا وهرت على سؤال حتى مدحوينها كسو جوابي سؤال ورا سؤال كلام كمان دايما هو اقون صناعي ادكسا بحنا كوغو همبليين يعني ثانك يو ما كوسو طبعا كوسو واحد هرت الهي وقال كانوا قبريا ان شعب الصومالي قلبي الهي دباتها كقادن لا ويرجيا waxaan gurajinay ilaahay roob raxmad law qabiyo ilaahay waxaan gurajinaya dawlad cadaalad maanta dadkii dhibaato haysata masiibo amiin macna xurta qowlku inuu sii waro waan ku xataawaye war xoriyatul qowl horta iyagana halkan waxaan uga rajeynayaa in ilaahay xoriyadoodii horta u soo celiyo dadka cadaalad darrada u xidhan suudaanka ummadda dhinacigeynaan caaw ka rabnaa in cadaalad sameeyno markii live soo galno in live ka in cadaalad sameeyna muhiim dad badan baa iska xidhan xubno oo nala faaxay iyagana free bay leeyahay sidii adigaba aan free ku lahayn in ku haajimin maalintii lagu yartaatay marka iyagana free baan leenahay free dhex ma aan nala faaxay لا قاتلكي وينا مويين ما صرت إن شاء الله حسبي قراه كوليستان لا حسبي جين هاي ترسو قرب تاجنا هذا نهاية تاجرياش حسبي هذا كله sababta mustafiya abdi adigu labada jeer badeegan ka waa joogtay anagu dadkii aan mustawaqa qaadanin baan nahay ee loo diidanay Soomaaliland bay ku baxsanayaan oo way soo caayayaan haddana mustawaqada iyo baasaboor baan qaataan oo shaqaale dawladeeda وليه هرت لما ميت بقى شيء عاوة حق عمك كان هذا يدي عنو نقدر مين ندور أنا هلا السودان كم بدر نطلع كل شيء عاوة شك لبلا عبدي يا مصطفى هرت قف واحد على شيء عمك هاد وحكي شيء سو دبتي سال الشيء ده يهرمر كيسنين على شيء ويان دبات هذا دت كين هاي ستوي
horta cabdidad wuu laayay waa run dhibaatooyin fara badan way dhaceen waa run laakiin danka wanaagga horumarkii Mustafa waxaan leenahay war xumaantiisu waxa qaadqaadina wanaagii iyo wuxuu qabtay xaqiiqa daydabaan leenahay horta Mustafa in la sheego weeyo qofku wuxuu qabtay in la xaqra ma wuxuu dilayna in la sheego ceeb ma war waxaan ku yiri ee kaadi horta xisbiga ma la fahmayba ninkaas ninka wax bartay ma war xisbigu caawa mawduuca meeshu saaray garaniyo aqli yeelo ma nin wax dilay ba ya ficli leh هالروح ويلكاga ma ku doorsan boqol wada ma ku doorsan ilmaha yar dhashay horta deegaanku nabad naadir uu helay markan xaqiiqiyan ka hadlan laakiin warno kaadiyo ilma yar dhashay boqol wada ma ku doorsan may marka haduu hooyo ka dilay ilmahaadi oo boqol wada qabto maxay tari walaalo hay'adda waxa weeyaan markay xaqiiqiyan suudaanka ummadda aynu ka hadlayna dibi way dhacday wixii dhacay shalay waa laga yimi maanta ay taagan tahay maantana dhibaato taagan runta aynu ka hadalno war hal wiil oo dhashay hal wiil ma helaysid 100 milyan alamadin hadii la dhaho hantidaada oo dhan maanta dhig ninka alamadin la dhaho oo hal ilma hadan halka ilmuhu ka jecel yahay marka halkan intuu cabdi ka bilaabay dee adigu isaaq waa tahay oo ogaadeen reeri looran jiray hal nin ma joogo ay walaal waxa weeyaan aynu ka hadalno tahay wixii tagay way tagayna waxa maanta jooga laga hadla xaaladda taagan maanta ummadda seen u badbaadinayba maanta maraysa dhibaataysan xoolii ka maranayaan war xaaji abiya ummadda waxa badbaadinaya xaaji abiya iyo Dr. Mustafa iyo Dr. Farhan Ali haddii aad garanayso horta live kaaga ciyaari maayo kale marka waxa weeye hal ilma aha oo yar oo la dilo ayaa ka daran wada iyo waxa soo dhan walaal waxa weeyaan horta ummadan badbaado u baahan tahay anigu xisbigii waxaan ahay dadka ka soo horjeeda ummaddu badbaado u baahan idinka qurbaan jooga qaylada kala aamusa annaga ka tirsan waxna sixiye xisbiga BBR waxaan ahay dadka ugu mucaarisan ee ka soo horjeeda hadii mucaarid qof noqon lahaa anaa noqon lahaa waxaan ahay dadka dhaliilay siyaasadda BB-da oo dhaliisheeda sheegay horta mucaanti ahay adiguna caawayaga amaanasa kala ma bayna laakiin aragtidaada uu kugu tixgelinay dimuqraadiyadda ka mid tahay inaad kayga ugu tixgeliso intaan taageerayo oo waxaan taageero weyn oo ahay oo nala qoonay adna BB baad u tahay caawa dhibaato ma laha kugu tixgelinaya laakiin wala alif waa inaga aga BB wala alif ma inaga ayn BB la foo inaga laakiin BB ma aha inaga wax xisbi qoomiyada kale leeyahay laakiin xisbigaaga waa taageero waa BB xajaabi baan ma ku sutag baan wara xajaabi waad garanaysaa Soomaaliis wuxuu u qaban doono warumaysid siyaasadda habeenkii ha soo raacin dadka oo siyaasadda habeenkii u soo jeed walaal wali soo jeed siyaasadda halka ka faraysan moday meesha nacna caawa sheekadaadu waxay taagan tahay meesha nacna kuma galayno xajaabi inaad garato way wuxuu Soomaali way guryaha dhisabada laga bixinayo hadda 100 nin oo gaaleena iyo 100 jubaaqa iyo 100 isaaq aan qoray kowdheer dhageysa caawada ana ku sheegay anu waxa la dagaalamayo qorigo dhageysatay guryaha dhisabada lagu qaybinayo dadka u tartamayo waxa jigu soo diray wareemada kamid ahayn aniguna waxaan doonayaa ku warama suldaanka ummadda waxaan doonayaa 12 gobolba amxaarada joogtay inaan ka safeeyo baan doonayaa deegaanka wada dhaafiyo adna anaga bulbay noo karsa waraanaga adamus ummadda kala qaban Ethiopia waa andinada Ethiopia midnimada ku wada joogeena anna waalid fikirkayga sultaan igu tixgelinaya kugu tixgeliya Ethiopia andinada wax la yiraahdo anaga nooma shaqeynayso gobonimana deeqdo xornimana deeqdo in deegaanka xoroobana deeqdo waxa waa wixii carruurtana ku baabiyay waaga reerka lagu baabiyay maxay baabi weeyay waxa waa wixii lagu waalay dadku bariis u baahan yihiin kolkay noolaadaan bay kadib noolaan doonaan war maanta waxa waa wixii dagaalada anaga lagu war shalay hata soo martay maanta waa kolkii la soo carabina dagaalku bixinaysa war maanta tiir liya shalay wadulkiina waa meel lagu baxamalayo maxad bixiyay shalay deegaanka hadii la gabo shalay hadii la idin gabay oo la idinka fariisto kalidii idinku ay maanta diyaar loo yahay wani halganka aynu qolna aynu qalinka ku xoreyna deegaanka in amxaara aynu ma galayno maanta ma qolka soo dhamaanadan halgamayna hadda inta nala kala haweenka uma nubadsan wari iti halganka ka hadhay maanta heega mooto qalinka aynu ku xoreyna deegaanka nadoo reeriyana bixino annagu waxaan u baahanahay inaynu deegaanka xoreyno aynu xornimo cadaalad annagu mar dambe ma baxayno buurtanadana laguma dhuumanayo maalin baa lagugu soo qaban buur maliid maxaad ku bixin maya waynu baxaynaa qalinkaynu ku dagaalamayna deegaanka waynu xoreynayna inay soo bixin mayno waanu qayili labada galibba waanu qayili
dhiman karta way dhimatay waxa weeye mar dambe dagaal ma geli karno iska tirso adeero waa lagu tirinaa hortii halka joogtay aniga soo diyaariyo qalinkan ku dagaalama nin wax bartayna waa tahay gudoomiyaha xisbiga hooyo tirsamaan doonayaan madaxweyne war arrinka waan qaatay adugu war ana xajaabi baan ahay anigu mani war anaga waxaan oo dhahnaa ku sheegaya abi adiga noo dhaamo gudoomiyaha xisbiga hooyo tirsoon deegaanka dhan aan ku wareejinaa noo abiyo xajaabi ilaahay baa noo soo diray awado waar abi maaha adiga noo ka dhaamo adigu gudoomiyaha noqon intaad abi isku dhadhijin abi aadna hor wado adigu xisbiga hooyo tirso xilka la wareeg xisbi Soomaaliyeed warana waxaan la xoreyn karnay waranaga aamus awowjadana ku dhimatay oo awowba ku dhimatay xor ku dhintay labada galinba af Soomaali baanu kaga balin ta kalena maalinkii baanu fadhisan oo nabuka noo joojiyay nooran Itoobiyada sheegi Sultan wax dhibi ma jiro dimuqraadiyadda la hana qaadi suuga Sultan deegaanka waan ka xoreynaa xisbiga BBN ee soo diyaar garo adiga ku saaran ama aan la fan saaran ay soo diyaar garoniyo nabad geliyahana BB وينك والله واد ما BB أنا ما وينك BB وينك Somali kismaayo ka u saaranta walaal soo qabto kana eeg sanjeedo uga lumiyo kolku soo qabso war soo qabto walaal Somali kismaayo hello warari maalo Somali kismaayo wari ayu wararniyo maalo waa fiicanaay xaaladda ka war maxaysa hada malay baa ku jiray leebka warmay warduqi maxaa caaw saaray duqi maxaa ku saaray duqa caaw maxaa ku geeyay niyo aga warduqi inuu soo dhibay barra carab qoriyo lagu qaybsadaana dhinacba iga martay warduqa daade caaw gaasha la teegaraysa isku subax waa akay loo inoo dhiibay akay hadaan subaxa qaadan lahayn ilaa caaw gaasha la maada sheegateere ari maalow duqada waa kuma kala wax ku boqorsaday wara xaga soo fadhiisa bal kore ya ma gaasha la dhaxay mushtayoon alif kaliga tagtay xaga bara soo fadhiisa axmedow war meel madow aan joogaa ma arkay saabe waxaan guri laakiin caadi baa kula soo hadlay استبد ويا إنبو نقل حراري وين هذا كده تعونه وكلام أبانا ولا كذا حتى لما يدق يبي ولا هذا وحنون كوكا من كل حيتامونا كقالن سند ولا فلان أو إلا أو فلان كلا قصاره قد فضي وحق قالن كرسي وحق قاتم الجرت أو ما هو كقصص أيها قد حضر الله سكوا مقدرنا صادم ولا توقفت انك انا لبت ولطه اي صوت فكنت وريشك ما قعدتي انس محوها المكب حياه ما اخريها انا صوت توقفت وراه عدالة ما تجوبتي عدالة الرد الشلك هذا مختار عبدي يركب وغرنطاي مختار عبدي يركب وغرنطاي وش والعبد السادة يا أول قرن يا ولا الديمقراطية لا تاجرة أو فكر كاجا لا تاجرة أو عقل كاجا لا تاجرة لما تاجرة ضلك يوكا أحمد نواب أقول لك أنت دكتاتورة أرسل صوب مختار سلطان هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبري ورندي أحمد أنت دوامك السلام مرك هر أدي أدونك السلام يا توبي قاعد عوالي أبو في عينه وناكسية aad baan kaga qaaday marka ma aragto waxaan leenahay odaygan quraan ruuga laga leexdo ma garad
haye la isan barbardhigi karayo wadaadkii hore iyo wadaadka hadda jooga abiya doctor abiya sama amankaas ninkaas doctor Eddie Allah inoo daayo ha maaragtay hadda waad ogtahay dadka lama laayo xorriyatul qowlka waxaad baad jeega ku dhex waxay diga ilaahay loo daayo waa nin sharaf leh marka tirsuguna iska iman doonaa insha Allah waxaa lagu haystaa un dee notary weeyaan marka hala samro maaragtay way iska iman doontaa waa notary na macna male mar haddii naf bini'aadan aan la goynin oo xabsiyadii aan lagu jirin oo ay maaragtay markuu waa kugu daray guryihii magacaada waa saddexan ii sheeg me waa oday maalin guryihiina waan kugu daray adhigtawama 100 qof waxaan qoray 300 oo qofaan hadda maraya abiya wiila soo hadlay xisbiga waayoo tirso shaqooyin badan baan soo dhiraandhiriyey in kushitigta waddanka lagu beeraa la rabaa waan tiray aqaladii iyo dabaqyadii G+3 ahaa G+1 baad barateene G+3 aniga la ii soo wakiishay anna waan qoray 300 oo qof oo qabiil walba baan hadda qoraya bireer hortii aan kaxaynaya adisababa guriyii furii lagu wareejinaya xajabiyo iyo cid kastoo ka soo horjeeda inaan wadnaa ku dhufano aynkaa weeyaan maaragtay mar damba bixi mayno maaragtay inaku labada gelib waynu qaylaynaa ma garad qod faanta soo ma xasuudaan labada bilood baan iska qaylo gooyin oo dadkii labada gelin waynu qaylaynaa kii maqaaxishadana maqaaxayashto kii kalena ha iska nabad gabo waa aynkaas maxaa maaragtay mucaarad iyo colaad iyo maxayna gelinaya moogta waa inaynu la qabsanaa maaragtay war mucaarad hadan anaga mucaarad uma toliya taagayo cid kasta ina tarayana uma toliya taagayo cid u toliya taagaysa ma jirto war aagadii caanahayd wardaasadii caanahayd keen wardaasadii caanahayd keen baa lagu leeyahay markaasay inay dagaal la geliyaan rabaan war ciddii dagaalamaya ordo qariga tag annagu dagaal ma gelayno xajaabiyona nabad buu na siiyey nabad baanu rabnay xajaabiyo nabad buu na siiyey ninkan kale bidaarta lana maaragtay iska jir ninkii mucaarado u xanuunsadaa moogta waa nin awliyaa ma garad ku soco ma garatay waa sida aad sheegtay mar hore aan laftaygu mar hore aan mucaaraday waxaan ku leeyahay hello waan ku xanuunsaday ma garad awla ha أنا تعجب في الروس أقصى نكاس وحيدي أنا مربع مصطفى معارضي وأنا حنوصلي بيدي أنا وان حنوصلي أتو أنا أكم نجايا أبو قربا سلطان سيطاي جال الله جرا أبو قربا أو بلسخية أكم ورا سلطان نوع وري وران دلنا بان كجراي ورما وفي عنا ميل ودان سعنايو gaadhibaan baalkii meel baan saaranahay hello warrabo seetay xaaladda ka waran haya war dhulkii baan sii xalinaya waad imanaysaan bil dambe waad noo imanaysaan war waa diyaara arlada adigaa suldaanu adigaa waa okay waa nabadgeliyo xaaji abi iyo doctor mustafa ciddii ka soo horjeysata cuqubaa ku dhici labada la shaqeeyo caawa waa diyaar ma waynu la shaqeynaynaa intayna la shaqeynayaan iyagu waynu la shaqeynaynaa jabhadda boo baxdi iyo waxaas ma jirto waan kaa qaaday afayeen jabhadaha maalinguur iyo reer haarunba yaa horordi jirtay innaguna hadda qoriga waynu iska dhignay ma garad nabadaynu qaadanay waryaa ونبتقليا ما تاينو هيسانو ميلاي تالا ما جرتو waxa weeye Ethiopia oo inaga nabad ka ah Ethiopia oo dhan waa la fikray waxa weeye habeenkan qaftamay anagu dayanina hawluhu waa hawleen sheekh Dr. Mustafa iyo waxa naga badan xajaabiye anu cid kale ma aqaano xitaa kuwa meel guurka ma aqaano labadan kaliya aan aqaano labadan kaliya ma labadan inta wax noo qabanayaan inay wataan inaguna waynu wadanaaye hawshaada liiliyo arrada saa wado arrada
nabadee adaa dadka suldaano ahe nin cabdi ilay iyo baalkii u doodayana dan inooma wado jabhad dambe oo baxdana uma taag hayno inteenna baaqiga hadda nabadda ayna deeqda ma garatay nabadayna deeqda iyo adhilayda meeshii dooni u guurta ma adhilay baa guuri kartay shalay war ma adhilay baa guuri kartay aroortii ku waadu baryay maqashiyiinta dhimatay buu odhan jiray hey marka inteenna baaqiga agoonteen maxastiyo agoontaynu hadda iska dhaqaalaysanaynaay qori dambe innagu uma taag hayno reerihii hore dagaalkii nagaga hadhay ha baxaan innagu meel uma soconne waa run ma bixayno etoobiyana waa ka mid baan nahay sidaal wax la dhahana ma jiro inta mushaarkiiyo aan dhaho xisbigiiyo waxooda waraaska ilaaliya nimanka midnimada afrikaanka ahna way kala hadlay kii madaxweynaha idinkana iska shaqaysta haye suldaan nin wax bartay waan ku wadanaa guulaysaysa suldaan ninka reer waqooyiga ee matana reer waqooyi baan ahay kugu aad kugu bushkaraynay masayladii dadka la iibinayaba ka maratay ma iska dawayna kaas waynaga saarado miya sayladii gabdhihii la iibinayay u baahdeen miya aad buu kugu bushkaraynay oo armaan baa kaas waynaga masayladii u baahnaa may kaas waynaga waa nin reer magaala iska dayo inagu ahaye waa inaga ma waa heega waa tuugti shalay ku cunaysay matana dhiigga shacabka ku cunaysay ee maanta macnaha wuxuu moodayaa inayna il bixino macnaha inaynu wali halkii taaganahay moodayaa aaba dhulkoodu meel lagu baxa male xagee uu ku bixi maalin baa lagu soo qabanay siiladii 1956 dadka la kala iibinay human traffic bay nagu sameeyeen xataa ma qoomameen ma yaxay xataa caawal wuxuu ku leeyahay war baxa marka waa siilad buu rabaa inuu furo abiyana mar dambe naga iibiyo ma la sidii ma la se may kaaya adiga waana sultaan waa ninka nabadgelay xagee uu ka hadlay fikirkiisa buu dhiibtay fikirka sultaan dhulka haduu leeyahay u damqanaya reerkooda soo dagaal geliyo shalay yuna sayladii noo daamarna iibka sayladan didanahay iska daa waa inaga kaas waa tirse sultaan ma taqaana maarta ninkaas caawana ma wanaajiniyo sultaan ninkaas meel ku baxay aroorba waa la soo qaban xagee ku bixay xayl iyo boolisaas waa dhulka maalin guurka un buu rabaa inuu wax loo diray oo lagu baabee ma asaga dhul hayaba سلطان واساس نيكا علي حوش وانا هذاك وين ودنا نيكا بالكي صاحب جاي كنت في اقوني سماله علي حوش وان رالي قلنا حالد ويسارن تاي نيكاس وان واحد بدن فانسني وان انا لفه هاي نيكاس وحو هنا هايسدغنينا ام بوليا هايسدغنينا هاي وين وتا نيكاس وين ودنا aad iyo aad baan ku salaamayna waa inaga aad baan ku salaamayna sultaan insha Allah guuleysay mid kale aanu reer walba sultaan baan oo hayde si ogaadanimona ila hadline eega meesha weyneed baan fadhiya Soomaa aad iyo aslaanki baad bedelka gudoomiyaha ku ciyaarna shir baan ka soo baxay may waa sidaas weeye waan ku wadanaa waa maqashay Soomaa toddobaadkan dul weyn baan ku maqnaa dulkii waa soo qaaday toddoba boqol oo guri buu dhaqto xaaji abi faraayiga geliyay reer isaaq waana u badan maalguur baa reer cabdilla maalguur ma kaga jira may wax reer la dhaama jiro wax reer la dhaama jire baalki siyaasad baa lagu kala lagdi duwanaan karaaya reer target kaaga reeraha war xaaji la waa reer cali gaab waa laga qarin jiray xaaji abi yaa waa reer cali gaab عاون بي أبتر نكو الله فعل بدنا بالله ورا على قاب قد قاضي وأقرد ربي لكم ينك الله شقيا بقولك ولقي اسم الله إني نوقع أنا هالك جاري حجابي وين الله شقينا أبي مصطفى وين الله شقينا أبي لا شقين دي مصطفى وين الله شقينا كوريزا ورا هذا وين ما لقيت من بدارت لأنه الله شقينا كل قابية دمبي نلا شقين كان بدار طلع يا أصدقائي وركان وويل كلمة حجابي وإنك قرصنا ورير كقول دي سنة كذا صح عوا صح وحول
wuxuu yidhi markii u horreysay dagaalka kilalka shanaad ka bilow baa la yidhi arbay ogaadeen nimay qaaday buu ku leeyahay amiyaa yidhi abba igu yidhi abbe waa garday war ninkaa inaad arag cid kastoo cadowgiisa halka xabad kaga dhufto annagu tii beela baan kaga dhufannay cid kastoo isku dayda inay mijaha xaabiso yaanu halkaa kaga dhufannay abiyo waanu garab taagannahay hiil iyo hooban la garab taagannahay annagu oromiya andinow toko oromo iyo soomaali waa toko mid weeye sax maya insha tukuma heertii tukuma baan ku leynaa tukuma eesama dhegaysatay maya suldan insha allah saas weeyaan hawlahaaga tukubanahay tuka hay nimanku shutiga waynu nahay hawlahaaga wado aad iyo aad baan kuu salaamaya de insha allah guulayso naftii hore xaaji abi abaabo waxa weeye nimankii kalena waa la wada ogtihiin xisbigii dhanaarta dhaweyta iga baxsaday qaybta sixitaankaan nahay qaybi way carartay jabuuti bay gashay qaybna waa la xidhiidhay qaybtii la xidhiidhay mustafa waa nin naxariis badan qaybtaa waxaa lagu daray xisbiga bb baa lagu daray sax helo waan ku maqlaaye maya waa sidaas wax qoladaas waa qolo isa saaran